salaadu ma iga ansaxaysaa haddii aan isticmaalo madoobayso casayso buluugayso noocyayso iyo wixii la mid ah salaadu ma iga ansaxaysaa soo weydiisayadu waxay ahayd waxaan badan la isbarbariyo iyo khatarta uu ku yeelan karo weysada timihii haddii la caseeyo la madoobeeyo midaba loo yeelo weysada iyo salaada miya wax yeelaya mar haddii aanay biyihii timaha la marinayo waxba ka celinayn oo biyihii jirka gaadhayaan oo ay timaha gaadhayaan salaadii horta waxba yeeli mayso laakiin waxaa xusid mudan wixii sharcigu inoo diiday haddaynu samayno salaada ajrigeedii wuu kaa yaraanaya inay timahaagii oo cad ama qof da-weynba aad tahay ama qofka da-da yarba madoobaysada nebigu uu diiday in la madoobeeyo marka haddaad taa marsato ajrigii wuu kaa yaraanaya wuxuu rasuulkeenu diiday sala allahu calayhi wasalam inaad isticmaasho ajrigii bay kaa yaraynaysa marka taa mooyaane laakiin salaadii ma burayso oo salaada waxaa mudan inaa ogaataan waxyaabo kooban oo dhowr shay ah ayaa buriya oo kaa jabiya oo ay tahay inaad ogaato si aad u garan karto cibaadada saxda ah ee aada la imanayso waxaa kaleynu baraarujin lahayd taswiidka iyo taxmiirku xagee ka yimaadeen qalabkan la isticmaalayo ee timaha lagu madoobeynayo ama lagu casaynayo dee ummado sheeya inoo soo waarida warshadaha soo saara lacag badan baa inaga baxda kiimikay leeyihin waxaa laga yaabaa timaha nuxurka inay ka qaadaan iyo unugyada jirka inay waxyeeli karaan elarjig iyo xasaasiyad aad ka qaado marka haddii aad doonayso inaad qurux raadinayso waxa dabiicigaa isticmaala kharashkiisuna inaga uu inagu soo noqonayo dakhligiisu isla markaana caafimaad ahaan aan waxba yeelayn